Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Abda Official. Muuqaalkan waxaa kaga sheekeyn doonaa sababaha keena dhaqaale xumada ama in dhaqaalaha hoos u dhaco. Waxyaabaha keenaya ayaan kaga sheekeyn doonaa hadduu Alla idmo insha Allah. Bismillah. Hoos u dhac dhaqaale ayaa ah xilli hoos u dhac ku yimaado howlaha guud ee dhaqaalaha. Sida caadiga ah, waxaa lagu qeexaa marka dhaqaalaha uu soo wajaho hoos u dhac ku yimaada wax soo saarkiisa guud ee gudaha laba rubuc isku xigta. Tilmaamayaasha kale ee hoos u dhaca dhaqaale waxaa ka mid ah shaqo la'aanta sii kordhaysa, iibka tafaariiqda oo hoos u dhaca, kobaca wax soo saarka oo gaabis ah, iyo hoos u dhaca dakhliga shaqsiga ee dhabta ah. Inkasta oo aanay fiicneyn oo laga dhaxeey tahay in dhaqaalaha hoos u dhaco, haddana waxaa muhiim ah in la fahmo in dib u dhac dhaqaale ay tahay wax dabiici ah oo ku dhaca dhaqaalaha casriga. Waa maxay dib u dhac dhaqaale? Waa hoos u dhac dhaqaale oo weyn oo ku faafaya dhaqaalaha oo soconaya in ka badan waqti dhowr ah. Si gaar ah, ereyga waxaa caadi ahaan lagu qeexaa inuu yahay xilli marka wax soo saarka guud ee gudaha GDP-ga uu hoos ugu dhaco laba rubuc oo isku xigta. Laakiin runtu waxay tahay waxaa jira tilmaamayaal fara badan oo go'aaminaya haddii aan ku jirno hoos u dhac dhaqaale. Hoos u dhac dhaqaale waxaad dareemi kartaa dhowr dhacdo isbiirsaday, sida sheegashooyinka shaqo la'aanta ayaa kor u kacaysa, caadooyinka qarashka ayaa badanaya ama isbedelaya, iibinta oo gaabsamaysa, iyo fursadaha dhaqaale oo yaraanaya. Maxaa sababa haddaba dhaqaale xumo, ama maxaa kalifaya in dhaqaalaha uu hoos u dhaco? Guud ahaan, balaadhinta iyo koritaanka dhaqaalaha weligood ma sii jiri karaan. Inaad mar walba dhaqaalaha aad korisid oo aad balaadhisid mar walba ma sii jirayaan. Marar qaar ayaa waxay dhacaysaa in dhaqaalaha hoos u dhaco haddii ay ahaan lahayd in cadaadis dibadeed oo kaaga yimaado dalal kale, ama in ay jiraan sicir barar, ama wax un inay dhacaan. Hoos u dhac weyn oo ku yimaada dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha waxaa inta badan kiciya isku dhafan arrimo oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin dhaqaale, dhacdo aan la saadaalin karin oo sababa qalqal dhaqaale oo baahsan, sida masiibo dabiici ah ama inuu dhaco weerar dagaal. Tusaalaha ugu dambeeya waa cudurka dhawaan dillaacay ee COVID-19, kaasoo dhaqaalaha adduunka dal by dal u saameeyay, isku socodkii ganacsigii aad iyo aadna u saameeyay. 2. Luminta kalsoonida macaamiisha. Markay macaamiishu ka walwalaan xaaladda dhaqaale, waxay gaabin ku bixiyaan qarashkooda, waxayna haystaan wixii lacag ah ay awoodaan. Sababtoo ah, ku dhowaad boqolkiiba 70 ee GDP-gu wuxuu ku xiran yahay qarashka macaamiisha. 3. Deflation. Deflation wuxuu ka soo horjeedaa ereyga loo yaqaan inflation, macnihiisuna waa badeecada iyo qiimaha hantida oo hoos u dhaca, sababtoo ah hoos u dhac weyn oo ku yimaada dalabka. Maadaama dalabku uu hoos u dhaco, sidaas oo kale qiimeeyayaashu waxay isku dayayaan inay soo jiitaan iibsadayaasha. Dadka waxay dib u dhigaan wax iibsashada iyagoo sugaya qiimo hoose, taasoo keenaysa hoos u dhac sii socota, hab dhaqdhaqaaq dhaqaale oo gaabis ah, iyo shaqo la'aan weyn. 4. Maarayn xumo. Dhaqamada xun ee ganacsiga badanaa waxaa sababa hoos u dhac dhaqaale. Dhibaatada keydka iyo amaahda ayaa sababta hoos u dhac dhaqaale. 5. Xakamaynta mushaharka. Kusoo rogista mushaharka iyo xakamaynta qiimaha ayaa marar badan taariikhda dhacday, laakiin kaliya waxay u horseeday hoos u dhac dhaqaale hal mar. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, Richard Nixon, wuxuu xayiray mushaharka iyo qiimaha si loo joojiyo sicir bararkii 1971 ee ka dhacay dalka Mareykanka. Laakiin loo shaqeeyayaashu waxay shaqada ka joojiyeen shaqaalaha maxaa yeelay looma ogolaan inay yareeyaan mushaharkooda. Baahidii ayaa dhacday maxaa yeelay qoysaskii dakhligoodii wuu yaraa, shirkaduhu hoos uma dhigi karaan qiimaha, sidaa daraadeed waxay iska ceyriyeen shaqaale badan, taas oo horseeday hoos u dhac dhaqaale ilaa 1970.
1973. Haddaba su-aasha mudnaanta leh ayaa waxay tahay imise ama ilaa iyo intee ama muddo intee la eg ayuu dhaqaalaha hoos dhiciisa jiri karaa? Xaqiiqda waxay tahay dabeecadda dhaqaale xumida aan la saadaalin karin darteed way adag tahay in la qiyaaso inta ay socon doonto. Waqtiyada qaar suuqyadu way is-rogrogaan, marnaba lama saadaalin karo muddada uu sii jiri karo dhaqaale xumida. Mahadsanid. Insha Allah waxaan rajeynayaa hadduu Alle idmo in muuqaalka aad iyo aad uu ku waafaqay. Waddanka haddii aad ku cusub tahay waan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto. Mahadsanid.